KNN ودني maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaay waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay Allah leedahay xafaayada konfi baby iyo caanaha konfi laak sidaanay ilmuhu uga qosliyaan wariya kala maane dadka koonka ku nool kartidooda aqoontay wax ku soo kasbadaane kiinu qaylamiya war maxaa kaloon ku qaraabana qayl ku noolanahay ariyaxad lagu haysataa maqarnigaana qayla iyo qarax waxaan ahayn lagu shaqeystaa walidinku ma haysaane ninba tacabkii tolay kaamaal baa la yiri war dhimaya waxana qayla ma ahane waxa la idin yaaba doorashada soo socota markaad qoondada dumarka hunguriyaysan maxaad tiri goor arag giradii iska dhiibay wax la igu leeyahay ma jiraan qore wareer kalmaanow anigoo kutubay ka yaaban ayaa odu dhigila noo yimid warnimayo murankiinaan ka yaabay Soomaalina dhaqaalahay ku murantahay ma lacagta shidaalka idin soo gaartay amiirka maraadka imaanay ma tiri war imaaraadka nooga bayd annagu carruurta caana noo siiyay adan qartay waligiin qayla dhaamiya badayadu ib ma waraanaha waxba lama socotaane ra'iisul wasaare Khayre baraawo dikayri hayehe ma nabadyo nolola baraawo la geey raba shirkii qamiista golaha wasiirada miyaa ka dhacay baraawo tubaha qaranka miyaa xagga lagu soo xiraya war wala weynay ma xisbigii weynaa haddana sii weynaa ee mahdi guula sheegay miyaa baraawo laga furaya oo mandeeyo hadeer ma waxa ay leedahay madaxtooyadii ah laga guuray wareedhaay iska daaya wareerke warkan naga suga madaxweyne lafta gareenoo shalay tagay ayaa ra'iisul wasaaraha baraawo ku soo dhaweeyay wuxuuna u tagay garoonka diyaaradaha la dhisay inuu furo xarigowna ka jaray aryaadaha waxaan maqli jiray xoogaaga waxa kuugu daran kii xirkaha ka gooya waxaana uga jeedaa maalin kasta madaxa xirig goysaan maqlow hayaahe horta yaa u sooha war koonfur galbeed warka ma haysiin soo xulista xilbaanada cusub ee maamulkaas dib ay u dhacdaa la yiri waxaan la isku haystaa waa la badanayo waa la yareynaa aryaadaha waxaan maqli jiray mugiceelay heshiisa xoolaalay biyacanta hadda waxa la isku dirinaa quudan jirin qoryo guromiya namay waxaan idin hayaa haddii baarlamaanka koonfur galbeed la soo saaro waxa laga heli doonaa maday keerow aliyow gaabow keerow eedan aliyow malak nuurow iyo kuwa kale badan war waxa dilmaantay inuu ku soo iyo mad keerow war una magaalkan ku taweelka baaray isankiidin taariikhda lagu baaray kowde filsanay iyo dhalahow iyo hundubow iyo khalafow iyo sacadow iyo walaagashay una magordaan miyow madayow adigana lama war mugil la firaahdo geegay gorgorad waa dhee jirtay dadka aayna meel naga fadhiiso warnimayo war ma haysan maanta dhuusan raab ciidankii dawladda ku dagaalay ayehe ma mushaar la'aanayna isku dilayaan war ahlu sunna iyo federaalka may u kala jabeen ciidamadu waraada ayaxtag eelna reebaa la yiri ma qayb wadaadadii kamid ah ka dhex dhalatay ciidanka war daacadi waa yaraatay ciidanka madalleeya isku diraysa war adeer ha degdegina awliyadu ma dhimatay way dhoomataaye warnimayo waa nala waalateen madaxweyne qorqoor rabay inuu madaxtooyada cusub ee galmudug ka dhagax dhigo xeradii 22aad kadibna ciidankii nabad sugidda madaxweynaha ka sii hormaro xerada galay militariga 22aad ay ugu tageen askartii joogtay qaarana rasaas bilowday markii sidaas isku dhici ku bilowday miya bilaabatay Allah saqiire war xerada 22aad xero militari weeye maamulka rayidka ah meel kale degmiyo magaalada ka waayay war dawladdu maamul goboleedka iyada ka mas'uula meeshay doontayna digi kartaa aryaadaha idinkoon is wareeri dadkan yu waa ka daalayo dagaal sokeeye doonima dadkaynu waa ka daalayo dagaal sokeeye doonima aye war Cabdullaah Shiribka waxa laga dhadhansan karaa dagaalka Kenya waa rabnaa warnamaya war meesaane Jubbaland maanta ciidamada ka qaadeen magaalada Kismaayo waxayna geesay ciidamada magaalada Dhobley haddana xanta soo baxay soo sheegaysaa in ciidamadaas loo diyaarinayo beled xaw warnamaya waxa la yiri nin reer muduga ayaa saaxiibkii maqaayad geeyay cunna ay nooc wixii ilay ka cunteeyeen ninkii saaxiibkiisa wuxuu yiri istakiin noo keena reer mudugiya soo boodo wuxuu yiri waxaad la iga tahay istakiin iska daaye aan xitaa koobi cawi karin
war waa waray kaasi ma hangoolkii galmudug buu ahaa warnooyow dowladda etoobiya saamigii degedda berbera way ka laabataan yidhi maxaa kala socotaan war dad waa laatiini awliyaa etoobiya ka sii saami berbera war etoobiya walaalaanunnay wax walbana waan wadaagnaa war waxaan idin idhi marse lagu caweeyiyo nimaan bad iyo cayl haysan maraakiib casriya foolfa iyo doonyo cararaaya casirkii kumuu iibsadeen caynad lacageede waxaa loo cartamayaahi waa ceelashii bari cidihii waqooyuu rabaa inuu ka ceyrshaa waradeero waa hurdaama annagana tiri bad ma lihiidaan oo leh xeebta ugu dheer afrika war naga tagaalkacay bad ma martee waxaa maray webiga yameys aryaadhaha kenyaan gardarradeeda arkaahe mugdhow iyadoo yameys ka gaalkacyo nagu haysata waa arkaysiin haddaan leeska dhicin elitariya taageeradeedaan u jeedaaye iyadoo ish baydhaw nagu haystan waa la arki doonaa aribaawayaal puntland xuduudaheeda aa ilaashanaysaa bad iyo berriba war puntland waxaa tegey wakiilkii qaramada midoobe james swan madaxweyne daniyana la kulma doorashadeena ka wada hadleen war ma haysiin maxkamadda ciidamada qalabka sida maanta waxay xukun dilay ku xukuntay askari dilay wiil ciyaartooy ah oo askariga saaxiibkiis gool ka dhaliyay war booliska Soomaaliland waxay garoonka Hargeysa ka qabteen nin Masri ah oo cashabari urursanaya war waxa cashabari u taqaan annagu gooyada u naqaan dadkeena cunta horta xaad la qalaatay baad wax kuma sheegtiin war adiga nagu qalaaday ordaha shaqa yeesha shirkadda baraka waa shirkad ganacsi oo ku shaqeysa habka online-ka waxaana maalgashaday bulsho badan ee aadna ku biir baraka waa bishaaro baraka leh beesadaad u dhiibtaana waa badbaado bil kasta ku badanaysa waa business adduunyada ku ballaartay ee ku biir baraka online fayowba fikrad doora dhaliye dadkayga inaan daryeeloon cudurka la dagaalan u diyaar garoobe balyaygaga dooroon kulmiye reeriyo kulmiye abwaanku kor yeelayaa karaamo wuxuu lahaa intuu ku duldhigay kurteed horyaalnimo kuu kasbaye kabiiriintii fankiyo abwaaniintii kulliba idaacadda kulansataay kulmiye reeriyo kulmiye kulmiye raadiyo kulmiye adaa kuma yaal dhacda ah wixii koonkan ka dhacay kobtay ka dhacdiyo dhacdada wararka nagu kaafiye kulmiye raadiyo kulmiye kulmiye reeriyo kulmiye kasmada waxaa lagu dhisaa caqliga lagu kaamilaa ogaal loo kaashadaa adeeg kaa kaafin kara cilmiga weeyoo kobcee markaad kedis lagu tartamo kulmiye noo qabatay baan aqoon kaa kororsannaye kulmiye reeriyo kulmiye kulmiye raadiyo kulmiye kalaamkii eebbe iyo kororsiimada sunnada markuu kaa baxo tafsiir islaamkii kulansataye kulmiye raadiyo kulmiye kulmiye reeriyo kulmiye idaacado kalolo'oloo dangaar koolkooliyo middii guudkadab jaro xumaan la kadaaliyiyo kadaabiin baabadane nidaam qaran ood kabtiyo kalsoonida nabadda iyo kaabaha noloshaa tahaye run baan kaa koobinnaye kulmiye reeriyo kulmiye kulmiye raadiyo kulmiye badeeca karooran meel kuwii rabay kaba warhayn midkii keenay kadeedan yahay markaad weriyaal kumbada codkooda kaleebarka ah bulshada kaalaya ku tiri durbaba lagu kala kacyo baqaaradii kumima yaal kulmiye reeriyo kulmiye adaa koobkii hantiyey kursigaasan aasaqae madaxweyne koli dhahaye waxaan ahay madaxweynaha dawladda Soomaaliland waxaan ahay madaxweynaha dawladda Jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dawladda Galmudug anigu waxaan ahay madaxweynaha dawladda Puntland anna waxaan ahay madaxweynaha Hirshabeelle waxaan ahay madaxweynaha dawladda Banaadir State war ana waliba aha madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed ay hayso kore waan ila qabsada kore anna waxaan ahay madaxweynaha dawladda Everland Talin tobanka madaxweyne
kulmiye news network waxa ay ku wargelinaysaa idaacadaha caadaystay baahinta goosgoosyada fariimaha iyo idhahyada idaacadda kulmiye u diyaarisay dhegaystayaasheeda iyo macaamiisheeda ganacsi inay ka waantoobaan waa xuquuq u gaar ah idaacadda kulmiye kuna bixisay maskax muruq iyo maal lamana isticmaali karo fasax la'aan digniin haddaba warbaahintii aan ka harin falkaasi billiqada ah waxaan la tigsan doonaa sharciga dardaaran haddii aad dadaashiin waa diyaarsan kartiin dib ugu laabta naftiinna ogow wax aadan lahayn kuma qancin kartid dhagaystahaaga ee ku qanci waxaad leedahay gacansiin waxaan diyaar u nahay idaacaddii xayeysiimaha goosgoosyada iyo fariimaha ay samayso KNN naga codsato inaan caawin doono KNN dadaalaa wuu gaaraa KNN kulmiye idaacaddu waa kulmiye